بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتان jecelahay soo dhawaada dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin inta nagu soo biirtay welcome intii hore ila sii joogtay inaguna aad baad u mahadsantihiin waxaan maanta nala sheerin garanayaa asxaabta bariis iyo kalluun sidaan u samaysto bal insha Allah inaguna waad ila arki doontiin. Let's go insha Allah khair. waa kan bariiskii markaan maxay hadanay sooskii u sameeyay iyo intii aan shiilaba saas ku soo baxay waxaan shiilayaa horta maxay hadanay badhaadhihii intaan inta kala sameyn badhaadhahan si yara shiilanayaa siduu hudhow toola markaan sooska ku soo daro una u maxay hadanay u burburin u yara adag yaroo fiican u noqdo ayaan u sii shiilayaa. ساسان هرتو ugu bilaabmaya insha Allah asxaabay inaguna ila socda. waxaan nii rajeynayaa caafimaad badan ciid fiican inaad ku soo wada ciideen maasha Allah ciideeda ilaahay khayr ha isku keen wala gaarsiiyo ana isku keen tuso insha Allah. maasha Allah san markaan u soo sameeyay waan ka guranayaa iminka uu yara shiilmay markuu saa u shiilmo waan ka guranayaa haddana insha Allah waxaan shiili doonaa binigaarkii ma garan karo maxay ahayd wax luqadda wax kaloo lagu iraaho ma garanayo sooma kolley binigaarka maan u malayn baamiye binigaar bay kala hayn markaa waa binigaarkii kane so waa kii madoobaa weeyaan kolleyba kalluunka lagu darsanayay markaas isagaan soo googooyay isagana waa kaas isagana waan shiilayaa u dhow toola siduu isaguna fudeed yar u noqdo ugu dhex baabi'in si yaro fiican u noqdo markaad kala shiishid aniga waa sida ila tahay inuu ka fiican yahay markaad isku wala darsid inkastay wixii ay kol ay si soo wala baxayaan sooskii haddana cuntada la kala shiilo kulleyba cuntada kale way ka yar macaantaan jeclahay haddana binigaarkan sidii badhaadhahan u shiilo kaleeta baan isagana u shiilayaa saa markaan u wala shiilo ayaan hadii hawshii kale kalluunka gali doonaa insha Allah. isagana saasana u rogrogyaan u wala shiili markuu in yar sidii badhaadhaha isagu ma casaanaya laakiin waan in yar baan isaga shiilay inta kale waan iska dhaafay saas markuu noqday isaga maasha Allah ayaan ka guray hadii waxaan u galayaa maxay hadana sidaan u sameyn lahaa sooskii kalluunka markaa ila socdo insha Allah. waan ka wala guray kalluunkii waan haystaa badhaadhihii shiilna waan haystaa binigaarkii shiilna waan haystaa waa kana alaabtana lagu howlgalayaa maanta waa maxay hadanay waa baamiyihii tamaadkii caliyadii weeyaan kalluunka lagu dareeyay marka hore si caliyadan dhulkii waddankeennii baan ku ogaa laakiin mar dhexdii baan discovery-yoon helay maasha Allah caliyadu si fiican bay ugu soo baxdaa kalluunka ugu fiican tahay maasha Allah si yaro fiican oo dhadhanay ka dhigtaa meel kastoo xawaasha lagu hayo waa laga heli karaa insha Allah. basashii markay shiilantay tamaadkii baan ku daray waxaan filfil markaas isagana filfishana aad bay udgoonaysaa dheriga waa iyadoo yaro burburan weeyaan iyadoo radqana maxay hadanay waan ku soo dari doonaa insha Allah. waatan maxay hadanay caliyadii aan soo radqay caliyadu markaas waxay leedahay yara aad uma si yara wala burburto waan shaandhaystay haddii aad rabtid inaad kulayl ka dhigatid kalluunka kulayl ciyaal kula cunayn markaad caliyada radqaysid baad basbaaskii casaan aad ku radqi sidaa mar quraata aad wala shaandhaysid laakiin haddaad basbaas cas ku darsanayn oo just caliyada tahay
saasaad uga soo shaandhaysanaysaa. waan ka shaandheeyaa kolleyba asxaabeedee ma garan kara iniguna inaad saa u shaandhaysiin iyo inaad ku darsatiin. kolley geedkii waaba lagu darayaa dherigii. maasha allah, markaad saa u wala shaandhaystay maxay ahaydeen waxaad iga soo baxaysaa qashinkii dusha iga wala hadhay. inta soo hadhay baan markaa ku dhex darsanayaa. inkastoo ummadda maxaan ku rahaye dadku ay yiraahiin intaan hadhay qashinka kolleyba waxa la khudradda inaa kollo wala radqo baa fiican. haddana aniga sidan aan u samaystaa maasha allah. marka intii hore basashii iyo tamaadkii ay isla shiilmeen waxaan ku darsanayaa haddana iminkan alaabta caliyadii iyo giddi kusoo wala daray haddana iyaga. maasha allah, siduu kalluunka udgoon noogu noqdo usoo fiican u macaan noogu noqdo. badhaadhihii aan shiilay waa kan. badhaadhihii oo reeri isaga waan shiilay, uma baahna wax badan. tamaadkii iyo basashiina way shiilan yihiin. aad uma sii burburayo, masii dhex galayo. saasuu iska ahaanaya isaga iyo baata bilingaarkii oo isagana shiilan. markaasaas isku wala dhex gelisid hadduu ilaahay ku qadaro. markaasaas isku dhex gelisid maasha allah, sooska waa kaas already soo. kaaroodka waa optional weeyaan, haddaa rabtid waa ku darsan kartaa, haddii kalena kuma darsanaysid. aniga just maadaama vegetable-kii ka kooban yahay isagana waxa lagu dhaafaa ma laho. inkas caafimaadku fiican yahay isaguna. markaasaasaan baan kusoo darsaday. waa haddii aad rabtiin, haddaad rabinna waa iska dayn kartaa. caliyadii aan soo shaadheeyena waa tanaan ugu soo daray. caliyadu markaasba waxay bilaamaysaa dheriga inay isqa qabsigiisii ay keento oo si yaroo maaragtay fiican ay ugu waxayso dhareer yaroo fiican isku dhegdhegaya inay samayso. markaas caliyadii giddi editay dherigii sooskii uu xawaashkiisaas ugu dhan yahay. waxaa just naga maqanay deetintii yarada xalxalkii dambe ila socda insha allah. maasha allah, marka sidan oo kale aad isku wala dhex gelisid already quruxdii sooska uba soo baxayaaba. waa tamaadkii weeyaan, tamaad qasaaci. tamaadkii weeyaan waxaan darsaday iminka iyo xawaashadii kalaan soo rado, kamsartii, barbarooniyadii iyo toontii oo iyagana isku soo radqay weeyaan. iyagana waxaan ku daray carfiska iyo udgoonka. maasha allah, waa maajikii weeyaan. edit waa xalxalkii maasha allah. waa milixdii. markaad milixda iyo isaga intaasaad isugu wala dartid editi waa daboolka u jiid weeyaan. maasha allah, intay kusoo wala si fiican isku soo wala dhex galayaan. waa kan kalluunkiina, waa kalluunka intan waa intii aan ka bixinaya maxay ahaydeen sooska. laakiinse intaan shiilayana way taalaa. intan waa intaan sooska ugu talagalay inaan ka bixiyo. maasha allah, kalluun carfiskiisii maasha allah. kalluunkii wadankii malaha badii dhanaanad cabayay baa noo macaanaa. ani kalluunadan maasha allah ma waa xiisaynaynaa inaa kalluun cunayna, laakiin kalluunkan malaha webiyadan laga soo gurayo weeyaan oo dhadhankiisu sidii kii wadankii maaha. insha allah ilaahay nabadii canaa nagu cesho dhulkiina. laakiinse waa la xiisaynayaa kalluunka marka waqti la joogaba inaa soos kalluunkii la karsado. sa kale loo duban karaa, waqti kasta waa duban kartaa. kamsartii iyo toontii intii yarada hadhay baan halkan ku shubanayaa. saan maxay ahaydeen ugu samaysto kalluunkii.
xawaashadii weeyaan. Xawaashadan marmarsan lahaa kalluunka ayaan diyaarsanayaa. Horta waxaan samaysanayaa marka hore maxay ahayd in xawaashada markaan saa u diyaarsado basbaas kuma darayo caruurtaan u diyaarin aftarna anagaa diyaarsanayna marka xawaashada iyo intaas baan isku wala darsaday iminka ini xawaasha haysatid bas ka darsan kartaa qasab maaha inaad xawaashka taayaan ku darsaday anoo aadna ku darsatid laakiin xawaashka jeceshid yaa isaga darsan kartaa. waa toontiyo kamsarsi alaabtii intii yareed ku hadhay mashiinka iyo xawaashadii aan haystay aan saas ugu dardarsaday. sidaa markaan isku wada dardarsaday basbaas ma laho in yar maxaa xawaashada waxa ku dhex jira in yar oo filfil madooba waa liin dhanaan weeyaan. waa liin dhanaantii weeyaan waxaan ku darayo intaaba ku filantay khalaas. intaa markaan saas ku dhex geliyo caruurta iyaga intaabaan u marmarinayaa. annagana basbaaskan marka dambe ku dari doonaa hadduu ilaahay qadaro. milixdii weeyaan waxaan ku daray maasha allah. saas markaan isku wada dhex geliyey milixdii iyo xawaashkii liin dhanaantii saasaan u marmarinayaa. intan waa intii caruurta saasaan u marmarinayaa ma kulayla laakiinse xawaashkoogii bay leeyihiin markaan caruurta u marmariyana annaga basbaaskii baan ku darsanaynaa haddii la heedhaa. maasha allah qurux markaas iyaga kulaylna uma aha. waa kan anagana sidaan u samaysana basbaaskii waa kan. basbaaskii baad iminka ku laaqanayaa siduu maasha allah kalluunkii la yaqaana uga soo baxo. basbaaskii iyo xawaashkii liin dhanaantaan ku beersanayaa basbaasku siduu igu yaro jilco. waa filfil madoobay weeyaan filfiltii madoobeyd. intaas markaan isku wada dhex gasho ayaan maxay hadana kalluunkiinina yaan isagana marmarinayaa. biyo yar baan kusii jilicsaday siday kusii yaroo maxay hadanay ay kalluunka kuugu marmaro u noqdo because hadduu adkaado inaad kalluunka kuma marmarayo soo ma. markaa saasaan yaan u samaystay. kista yaroo biyo aan ku darsaday because haddii kalaysee uu biyaha kaaga bataana ma fiicna inuu yaraadana ma fiicna basbaaska markaasaan u laaqanaysa. inuu dhadhankiisu kaa maxadana xumaadana maahina biyaha ka badisidna ma fiicna. maasha allah saan ugu soo baxay marka waa si qurux badan oo kalluunkiina u dhex galo. maasha allah intana kalluunkii baan maxaydana dhex gashanayaa. kalluunkii basbaaskii saasaan isku dhex marshay. saliidii baan u diyaarsanayaa deetii waan shiilayaa siduu ku soo baxna wadaarki doontiin asxaabey. labada dhanba markaa si fiican aad u dhex gelisid way aanshay maxaydana sooskii waa kan asxaabey maasha allah siduu ku soo baxda qurux. marka soosku bislaado waxaad ku garanaysaa wuu iskala
biyihii saliiddu way kala baxayaan maasha allah saliidda dushay soo maraysaa sidaas ku fahmi kartaa sooska inuu khalaas deeti bislaaday basashana waa kalluunka horteed baan yara shiishay basashan ugu talagalay bariiska inaan dusha kaga darsano iyada waan ka gurtay hedeeti kalluunkii waa kana kii hore maasha allah qurux kalluunkii waa kana markaan shiilay soo wala shiilay dhammaan waa tan kalluunkii basashii maasha allah soos ku soo baxay waa kaasaa maasha allah sidan bilaa soos xawaashka dadka intii nacda kalluunkii iyo salaadkii iyo bariiskii maasha allah iyo khudradoodii waa kuwa ayaa saas u samaysanaysaa haddii aad sooska jeceshahayna sidii kaleeta baad u samaysanaysaa iyo maca sooskii aan ku tusay maasha allah asxaabi waa kan noocada kale aan u sameeyeyna haddaad sooska jeceshiid weeyaan isagana saasaad u samaysanaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.